Assalaamu calaykum. Soo dhawaada saaxiibada ku xiran janaalka Tartan Media. Maanta waxaan xoog saari doonaa faa'iidada iyo awoodda ay leedahay aamusnaanta. Haddii aad tahay qof hadal badan ama dadka ay dhahaan waa hadal badan tahay, maanta waxaad ogaan doontaa faa'iidada ay leedahay aamusnaanta. Haddii aad dhamaysato muuqaalkan, waxa aan aaminsanahay inuu wax badan ka bedeli doono noloshaada. Waase haddii aad si fiican u dhageysato, aadna rabto inaad isbeddel samayso. Marka aad carootid ama aad la dagaashid saaxiibada, aad ayaad u xanaaqaysaa. Haddii aad qayliso, wax ku soo kordhaya mal waxa dhaca karta dhibaato inaad geysato. Laakiin haddii aad aamusto, waxaad ogaanaysaa hadafka aad u dagaalamaysa iyo inaad iska koontaroosha qofka aad la dagaalayso waxa uu yahay adiga ayaa isku noqonaya. Dadka maanta caalamka ku nool badankood marka ay rabaan inay isdejiyaan waxa ay daartaan muusika iyo wax daran, laakiinse taas ma aha wadada saxda ee qofka ku degi karo. Haddii aad aamusto muddo ku dhawaad 2 saac ilaa 3 saac, waxaad helaysaa deganaan iyo farxad iyo rareyn iyo fikir iyo caqli ahaan. Haddii qofka uu hadlo, waxa uu noqonayaa qof energy badan luminayo. Laakiin haddii ay badato aamusnaantaadu, waxaad noqonaysaa qof energy badan u kaysamo kaasoo aad ku fikiraysid. Marka uu fikirkaaga batana, waxa aad noqonaysaa qof leh wax soo saar aad u badan. Nabi Sakariye nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee, markii uu dhalinayay Nabiilaahi Yahya asigoo odaduq ah, waxa uu dhahay Ilaahay maxaa calaamad ii noqonaya oo aan ku garanayaa marka wiil ii dhalayo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu dhahay waxaad aamusnaan doontaa 3 maalmood oo aad gurigaaga joogi doontaa. Taasina waxay ka mid tahay faa'iidooyinka ay leedahay aamusnaanta. Marka uu dhibaato ku geysto qof adiga ku dhow sida qaraabada, asxaabtaada, walaalaha, hooyo ama aabbo, waalidkaaga qofka uu noqdo, haddii aad isla markaasi fal celiso oo aad qayliso, wax ma soo kordhaya. Waxa macquul ah inaad qaado waddo qaldan oo aad samayso wax xun. Laakiin haddii aad ka aamusto, waxaad helaysaa waddada ugu fiican adigana ku wanaagsan, waayo ma fiicni in waalidka lala tirsado. Laakiin haddii aad buuq isku furto, ogow inaad aflagaadeynaysid ama aad gacan u qaadaysid waalidka. Xigmad ayaa ahayd markii aad hadal badan tahay waxa ay dadka ku moodaan doqon. Laakiin haddii aamusnaantaadu badato, dadku waxa ay ku fikirayaan waxa aad adigu tahay, oo waxay mar walba raadinayaan inay ogaadaan xogtaada, ilaa heer ay gaaraan inay adigu ku weydiiyaan oo ay ku dhahaan maxaa mar walba u aamusan tahay, qof hadal yar ayaa tahay. Haddii aad ka mid tahay dadka aflaanta fiirsado, dib u fiiri atooraha iyo dadka la joogo farqiga u dhaxeeya markii dhibaato la galo. Atooraha wuu aamusan yahay, laakiin dadka la joogo waa ay qaylinayaan. Markii dhibaatada laga baxayo, waxaa dadka ka bixiyo atooraha oo keliya, sababtoo asigoo u aamusnaa markii ay ka qaylinayeen waa uu fikirayay. Ma ogtahay micnaha dhabta ee salaada? Waa khushuuc, aamusnaan, deganaan, xasilooni. Inaad ka baxda caalamka aad joogta oo aad tagta caalam kale, aadna toos ula hadasho Rabbi subxaanahu wa tacaala. Waana qayb ka mid ah aamusnaanta. Markii aad muddo aamusnaata, maskaxdaadu waxay godlinaysaa fikir wanaagsan,
caqli ku duuban maskax. Mar kale waxaan idin sheegayaa aamusnaanta inay tahay hubka kaliya ee lagula dagaalo xanaaqa ama qofka aad isku dhacdaan. Qofka xanaaqsan wax yar kadib wuu iloobi karaa, laakiin haddii la isku sii buuqo waxaa ka dhalan karta natiijooyin aan wanaagsaneyn. Aamusnaantu waxay ku siinaysaa inaad qaaddo waddo sugan. Waxaan bataatanba jirin, dib u fiiri qof caaqil ah ama xaakim ah kaasoo aad u hadal badnaa. Ma soo arkaysid qof caaqil ah ama xaakim ah oo hadal badan. Kaliya wuxuu ahaa nin ku hadla xigmad iskana aamusa marar kale. Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam ayaa dhahay falyaqul khayran aw liyasmut. Khayr ku hadal ama iska aamus oo ha ku hadlin hadallo maalayacni ah. Si aad u noqoto qof kontaroola waxa ka soo baxaya afkiisa, kuna dhaqma waxyaabaha wanaagsan, dadkana ay isku furmuuqaan oo ay sheegaan wanaagiisa, waa inaad yeelataa astaanta aamusnaanta. Khubarada caafimaadku waxa ay sheegeen qofka maalinta kaliya 2 saac aamusnaado in seliskiisu aad u kobcayaan, noqonayana qof fahmad leh dhan waliba. ugu dambeyntii waxaan idinka tagayaa xadiiskii Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam ee ahaa falyaqul khayran aw liyasmut. Qayb ku hadal ama iska aamus. waxaad nagala socoteen waa kanaalka Tartan Media. waxaa idin soo gudbinaya anigoo ah Mahad Deerow Aadan. haddii aad rabto qisooyinka, dhacdooyinka, taariikhaha wadamada, fadlan hoos nagula soo wadaag. waxaad rabto inaan kula wadaagno, fadlan naga iloowin like, share, subscribe, commentina kusoo dhiibto waxa fikradiina ah. waa inoo muuqaalka kale. waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. nooli kulanta leh.